الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. marka hore ilaahay baa mahadle inabad keenay maanta oo aan ka soo degay carriga Ingiriiska kana soo kicitamay bariga Afrika gaar ahaan magaalada Djibouti. ilaahay baan ugu mahadinayaa marka hore inuu ilaahay nabad keeno. alxamdulillaah rabbil caalamiin. horta inaan ka abtigo ahay musabbix horta inaan wax yiraahdo maan doonina ka hor dhaco. muuse waxaan leeyahay horta lagu soo dhaweynaya abti horta ku ducaynayno duca nagama galabsan ku habaari maynana oo de waa jiilkayga waa too de oo barkayga ku jiro waan dala dhalatay habaarna de ku qori mayno laakiin waxa ku soo dhaweynayna oo ku soo dhaweynayna oo maanta musabbix leeyahay lagu soo dhaweeyo waxa weeyaan oo dadka iyo ummaduba aanu kula talin lahayn lagu soo dhaweeyo mucaaradad adag iyo tala adag iyo wada tashi adag iyo dagaal siyaasaysan oo adag in lagu soo dhaweeyo muuse. waayo muuse dalkan boob buu ku yimid, dagaal buu ku yimid, dhiig buu ku yimid, jeegaan iyo hagbad garaysan buu ku yimid. marka wixii lagu soo dhaweynayaa waa adayg ma lagu soo dhaweyn maayo, hambalyo lagu soo dhaweyn maayo, mushxaradna lagu soo dhaweyn maayo, farxadna lagu soo dhaweyn maayo. waxa lagu soo dhaweynayaa halka aad lagu soo dhaweynayaa muuse sidoo u furfura xisaabtaana isaga u taala midna way raaca. waxa laga abti horta dad abti hal u baahan tahay garabkaaga joogaano siyaasiyiin iyo salaadiinba garabkaaga joogaano ku dhisay. waxa la yiraahdaa horta kuwaas ha kugu filaada oo de in ku ogol kula socota ku joogta. laakiin marka la ergaan soo dirtay qarxajis annagu waxaan arkaa anu wali shakhsi ahaan arkaa inaad mustabeedka iyo gudida qarxajis aad ku tahay ruucdi iyo falqado oo jeceshay inaad baabiisid qaybisna taana abtoona ka digtoonay. marka waxaan leeyahay waa wixii hore tagaya taliyo jooga wixii hore dhamaa bal abti intii hore waxa noogu daran baan leeyahay dawladdaadana dhiso hawshaadana qabso ergooyinka faraha badan ee soo diraysidna waa lagaga wanaagsan yahay qarxajis inta kula joogta ku filataan leh kuntii iyo gabagabadii shacabka fariin baan faraya intaan sheegaan tahay shicibku waxaan leeyahay Somaliland ku dhaqmi mayso sheegaan gacanta la isku dhiibo amba Somaliland baa jiri amba sheegaan taa jiri laakiin laba meel wada geli kara maaha. bilaana kuna muuminka hal mar baa god laga qaniina laba goor laga qaniina mar bay sheegaan dadka qaniintay wixii ka dhacayna waa loogi. marka waxaan leeyahay mujtamaca reer Somaliland faraya iyo sheegaanta laftigeega waa wixii hore dhamaayay talo hala isku noqdaan Somaliland sheegaantu meel mooda galaan. waxaan ku talanayaa haddii la doonayo Somaliland inay waarto oo dal jiro noqoto oo ay noqoto dal mustaqbal leh waxa la sheegaanta hala baabiyo halka laga soo gaarana hal ugu la dagaalamo hal la burburiyo hal la baabiyo sheegaantu Somaliland hal soo xoojiyo beelaha ku shuraakoobay sheegaanta waxa la yahay bal hagbad halka inaga soo afjara haddii doonaysan inay Somaliland nabad ku sii jirto oo in Somaliland nabad ku waarto. haddii kale de Somaliland hore xinjiro lagu daadiyo dhiig lagu daadiyay haddii ay saa ku sii jirto mar labaad baa dhiig loo huraya Somaliland la xoreeyo oo laga xoreeyo sheegaanta baa ku soo gabagabeynaya. waxa la yahay waa digniin ninku diyo ku mudrin waxa la yahay haddii aad ku tagi weydaan nabadda mar labaad baa Somaliland la xoreyn doona intaas ku soo gabagabeynaya.